بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu ka warramaynay darsigii ku saabsiisanaa subulu inhaa'i alkhusuuma aw alkhilaaf, shareecada islaamiga iyo qaababka ay u jidaysay in loo dhammeeyo muranka aadanaha ka dhexeeya iyo isqabqabsiga dhex mara. waxaynu cumuuman tilmaamnay aadanuhu inaanu muran waayin ama isqabqabsi waayin, laakiin inta badan dhibtu waxay ka timaadaa qaabka loo xallilo ama loo dhammeeyo murankaasi. hadduu muranku dhammaan waayo, aakhiriya adduunba waa lagu khasaaraa. walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaahay qur-aan ku leeyahy. ha murmina oo nisaac iyo muran iyo dhexdiina marin. haddiise ay taasi dhacdo, maxaa ka ratibmaya? alfashlu wa dhihaabu riix. alfashl iyo dacf, liidnimo, iyo qofku inuu tamar dareeyo iyo inuu qiimo beelo, iyo dhihaabu riix, dowladnimada iyo magaciiyo maamuuska aad leedahay inuu tago. ilahay wuxuu leeyahy haddaa isqabataan oo nisaaciina ah xal u weydaan, adduunka intaasaa ka rakatibanta. ama aakhiro, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalin kasta oo isniina ama khamiisa in acmaasha ilaahay loo soo bandhigo, dabeetana ilaahay dembigooda wuu dhaafaa. qof kasta oo saaxibu tawxiid ah, ilaahay keli yeelay, keligii caabuday, aan cidna ugu shariik yeelin, laba mooyaane nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. laba dhexdooda shaxnaa iyo dhib ay u dhaxayso, labadaa ilaahay wuxuu idhaahdaa andira haadayni xataa yastalixa. labadaa dib ha loo dhiga arrinkooda ilaa iyo intay ka heshiinayaan. waxaa xaqiiqa ah markaa murankiiyo isqabsigu waxaa laga dhaxlaa adduunkiiyo aakhiraba inaanu fiicnayn. walidalik shareecadu waxay inoogu yeedhay baynu nihi laa budda min xal. xalkana 3 waddaynu ku tilmaamno. in la kala guuro unoo la yidhahdo ina kala fogeeya xal maaha, ama qofka waanu cadhoodaha iga tago. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa hajru lmuslimi akhaahu sanatan ka safki dami. qofka mu'minka ahi inuu walaalkiisa kale mu'minkaa ka dheeraado, ka durko, sanad inuu ka maqnaadaa inay la mid tahay ka safki damihi, dhiiggiisa u qubay. iyadoo laysu dudayana dee lama wada joogi karo. idan laa budda min xal. waxaynu idhi xulusha shareecadu taqaano markaa kow, waxaynu idhi ima alcafwu aw alsulxu aw altaxkiim waalqadaa. 3daa miduun in la sameeyo. qodobkii koowaad ee ahaa mas'alati alcaf waynu ka hadalnay, iyo majaalaadka ama meelaha uu cafwigu galo. biidn illaahi tacaala waxaan isku dayi doonaa caawana inaan soo bandhigno masalati sulx, masalada heshiiska ku saabsiisan. waynu leenahay mowduuca sulxigu waa ahmiyo weyn buu ku leeyahay nolosha bini aadamka oo dhan. majaalaadkii aynu cafwiga ka soo sheegnay oo dhanna wuu galaa. ha noqoto 2 qof dhexdood, ha noqoto 2 kooxood dhexdood, ha noqoto 2 dowladood dhexdood,
ha noqoto gaaliya muslim dhexdood, ha noqoto dowlado muslima dhexdood, miduu doonaba ha noqdo, dhammaantood sulxigu wuu galaa majaalaadkii aynu inta badan ka soo warramaynay aynu cafiga ku tilmaamnay. cinwaan caamana ilaahay wuu siiyo uu ku tilmaamayo wasulxu khayr baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. sulxiga shareecadu ay taqaano kay waafaqsanayd hadduu yahay, ilaahay wuxuu tilmaamayaa sulxigu, heshiisku inuu khayr yahay, khayr mutlaqa inuu yahay haddii uu waafaqo weeyaan shareecadu sida ay tilmaamtay. maanta caalam alfikri alqaanuuni ama dunidu aqoon-yahanka qaanuunigii maanta dunida dhankay u janjeedhaanna waa itijaahu sulx. walidalik baad majaalis tiro badan oo duwaliya ama dowladaha ka dhaxaysa baad maqlaysaa mufaawadaat iyo xiwaaraat iyo wadahadallo ka socda oo intaa la gorgortamayo la isku soo noqonayo oo la wado ilaa heshiis laga gaadho. heshiiskaasi dowlada ha dhex galo oo ha dhex marayo, sharikaad dhaqaalaha ha dhex marayo. waxaa la isku dayaa inaan maxaakiimta marka hore la geynine la gaadho qaanuunka rabbaaniga ee qur-aanka ku qoranaya wasulxu khayr. sulxigu waxay culammadu yidhaahdaan kama yara bay yidhaahdeen dowri alqadaa. umamka dowladda ama ummad aan qadaa lahayni ma jirto, ummad aan ministry dhan u samaysanin cadaaladda iyo maxaakimta iyo waxa kani, ummad waliba way leedahay. haddana waxay culimmadu yidhaahdaan kama yara mas'alada sulxigu mas'alada qadaagaa kama yara, bale mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa qadaaguna xuquuqduu celiyaa, xaakimta iyo garsoorka iyo in dadka la kala xukumaa wa raddi alxuquuqi ilaa ahliha. laakiin waxay dhahdaan sulxigu isagu wuxuu sameeyaa bay yidhahdeen raddi alquluubi bacduhum ilaa bacd, quluubta bini aadamkuu isu celiyaa. walidalik baa ahar laga soo arooriyo cumar bnu alkhataab radia allahu canhu wa ardaah ayaa wuxuu leeyahay raddu alkhusuuma xataa yastalixuu. dadkiisii cumaashii ama qudaadiisi isagoo la hadlaya wuxuu leeyahay raddu alkhusuuma xataa yastalixuu, celiya dadka is haysta ilaa ay ka heshiinayaan, fa ina fasla alqadaa'i yuurisu baynahum addaqaa'im. xukunku nowcan maa xasaasiyaad qalbiya buu reebaa, laakiin wuxuu leeyahay sulxigu wuxuu keenaa labada qoloba iyagoo raalliya inay kala tagaan. sida awgeed haddii natiijada khilaafku iyo nisaacu iyo isqabsigu ay tahay dacfi ka ratibma ama fashal dunawiya ama liidashiya taagdarro adduunka kugu dhacda iyo aakhiro oo aan khayr badani ku horraynin saynu tilmaamnay, natiijada sulxiguna waa caafimaad iyo dawo iyo naxariis ummadda dhexdeeda timaada. qawaa'ifta ama kooxaha u quma inay bini aadamka islaaxiyaan oo dhex galaan waxay uga dhigan yihiin bay yidhaahdaan umamka halka ugu jiro addifaaci ilmadani. dunida dabku markuu dhaco dowlad waliba waxay leedahay dad loogu talagalay inay ka hortagaan maxay dabdamisa, fire brigade, ciidan dhan oo u diyaara inuu meeshii dab ka dhaco tago oo uu damiyo amase bakhtiyo. fakadalik dadka islaaxa u qumiya muslixiinta ahi waa fire brigade-kii ama waa difaaci ilmadani loogu talagalay ummadda nisaaceeda iyo dhibteeda inay zuuliyaan. sida awgeed sulxigu asli alkalima fi lluga min salaxa yasluxu waa ضد الإفساد أو الفساد. إصلاحنا waa ضد الإفساد، sulxiguna waa ضد الفساد.
terminology ahaan ama eray bixin ahaan mustalax ahaanna waxaa loo yaqaanaa waa zuulin la zuuliyo ama baabi'in la baabi'iyo cadaawaadka iyo isqabsiga ummadda dhex yaalla oo beddelkeeda wi'aam iyo iswaafaq iyo nabadgelyo ummadda la dhex dhigo amase waa inhaa'i alkhusuuma wa qaطci الnisaac biطariiqa wudiya bayna alkhusuumi duna allujuu'i ila alqadaa. waxaynu markaa ka warrami doonnaa sulxiga iyo aqsaamtiisa, sulxiga iyo majaalaadka uu galo, sulxiga iyo qur-aanka iyo sunnadu siday u soo bandhigeen, sulxiga ama heshiiska iyo bashariyadda dambe xataa mawaaqifta ay ka taagan tahay. heshiisku wuxuu dhex mari karaa muslim iyo gaal, dowlad muslim iyo dowlad gaala ah, bulsho muslimiina dhexdeed, afraad ama kooxo muslimiina, qabaa'il iyo jamaacaad muslime dhexdood. wuxuu dhex dhici karaa baynu leenahay qoys iyo reer isqaba, nin iyo xaaskii. ayankan waxaan leenahay shareecadu waxay inoo tilmaamaysaa maalan fii qadaaya alusar markaynu tilmaamno arrimaha guriga ku saabsiisan unuga ugu yara bulsheed. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr wauxdirat ilanfusu shux wain tuxsinuu watataquu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira. labada isqaba dembi korkooda ma ahaanin baa ilaahay yidhi hadday dhexdooda sulxi iyo heshiis galaan. yacni bini aadamku mar kasta qaanuun qura kuma wada dhaqmo, laakiin waa laysu tanaasulaa. sulxiga asalkiisuba waxa weeyaan in qof waliba qofka kale wax uga tanaasulo oo meel dhexe laysugu yimaado. ilaahay wuxuu leeyahy labada isqabaa hadday meel dhexe isugu yimaadaan dembi maaha, bale ilaahay wuxuu leeyahy wasulxu khayr, meel dhexe inay isugu yimaadaan baa khayra. markaasaa ilaahay aayadda wuxuu ku xigsiiyey wa uxdirat ilanfusu shux, nafta bini aadamka waxaa lagu xaadiriyo lagu soo ururiyey baa la yidhi oo dabeecadeeda iyo sajiyadeeda iyo qaab nololeedka ilaahay u abuuray ka mid ah ashuxu baa ilaahay yidhi dhabcalnimo. insaanku waa waxaygiiga kama tanaasulo, wuu ku badan yahay insaanku dhabcaalnimadu. dhabcaalku waa bakhiilka xaddhaafka ah, shaxiix markaa tahay. ilahay wuxuu leeyay nafta bini aadamkii waa shaxiixad, shuxaasi bini aadamka agtiisa wuu yaallaa, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad naftaada rabbayso oo aad kortid oo aad aqbashid inaad wax xuquuqdaada ka mida ka tanaasuli kartid si meel dhexe dadku isugu yimaado. wain tuxsinuu watataquu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira. walidalik baa culammadu waxay dhahdaan aayaddan yar 3 goor bay ku soo aroortay kelimatu sulx ilaahay ku celceliyey an yuslixa baynahumaa sulxa wa sulxu khayr 3 maraat. waxay tilmaamaysaa bay leeyihin ahmiyadda ay leeyihin. imaam sacdiy fii tafsiirihi wuxuu leeyahay cumuumu lafdiga waxaa laga fahmi karaa buu leeyahy ayi munaasaca bini aadamka dhex marta, isqabsi kasta oo bini aadamka dhex mara inay heshiiyaan oo qof waliba xuquuqdiisa wax ka mida uu ka tanaasulo inuu khayrku ku jiro. qadiyadda jamaacada iyo bulshaweynta muslimiinta ah maalan ilaahi subxaana wa tacaala fii suurati alanfaal aayaadka ugu horeeya wuxuu kaga warramayaa dhacdo saxaabadii ka dhacday. bini aadamka in shaxiixnimadu naftiisa iskaga abuurantay qisadan baa aada u tilmaamaysa inuu qofka bini aadamkii u baahan yahay in badan inuu naftiisa muraajaceeyo, dib ugu noqdo oo uu rabbeeyo, isku dayo inuu koriyo. waayo waxaa dhacay saxaabadii waxay ka hijroodeen adduunkoodii iyo maalkoodii iyo waxoodii o dhan ilaahay dartii bay uga tageen.
laakiin dagaalkii koowaad ay gaal la galaan markay galeen iyaga iyo quraysh dagaalkii dhex maray ghaswatu badar iyagoo tiro yar baa ilaahay u hiiliyey subxaanahu wa tacaala dabeetana waxay jebiyeen gaaladii markay jebiyeen jamaacadii muslimiinta ahayd 3 qaybood bay noqdeen gaaladii jabtay qolo caymadisa oo sii firdhisa oo eryata gaaladiina markii laga hadhi waayey waxay isku dayeen waxay siteen oo dhan inay daadiyaan si fardaha iyo awrta iyo lugtuba ay u dheerayn karto oo dee sidan iminka militarigan logisticskan gaarka a watay iyo waxa kan ma ahayne qof waliba rarkiisa cunneed iyo wixiisoo dhan isagaa sitay markuu qofkii jabay ee uu cararaya wuxuu isku dayey waxaan cuslaynaya o dhan inuu iska daadiyo koox markaa muslimiinta ka midii qoladan bay eriday kooxina wixii la daadiyey bay guratay oo soo ururisay kooxina kamay aamin ahayn qadiyadee waxay ku hadheen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay gaadh ka hayeen cubaadata bnu saamit saxaabiga la yidhahday xadiidka warinaya wuxuu leeyahay fasaa'at akhlaaquna xoolihii la soo guray raggu waa basaaradsan yahay wixii adduun la haystay horaa looga soo hijrooday weli futuuxaad ma dhicinoo muslimiintu waxba may furanin madiinaa lagu joogaa hijro aan waxba lagu haysanin waxoogaagii gaalada laga furtay ayuu leeyahy cubaadata bnu saamit akhlaaqdeedii baa ku xumaatay waa lagu murma qoladii urursatay waxay yidhaahdeen intaan annagaa soo urursanoo dee dhacsannay qoladii gaalada eridayna waxay yidhaahdeen maydan gurteen intan annaba waa guri kari lahayne waxaanu ka fogaynaynay gaalkan jabay baanu sii eryeynay qoladii kalena waxay idhahdeen annaba nebigaanu ilaalinaynay calayhi salaatu wasalaam maanan wax guran waaye waxaad dareemaysaa nafta bini aadamka ayaa shaxiixnimadu say ku tahay nimankii shalayto xoolahoodii iskaga yimi ee ilaahay dartii uga yimi haddana nafta bini aadamkii marka la kaakiciyo adduunka ay isku qabsato inay dhici karto ilaahay baa qur'aan soo dejiyey beder ka warramaya intii aan laga warramin beder iyo siday u dhacday iyo wacdarahay muslimiintu muujiyeen iyo gaaladii siday u laayeen iyo ilaahay siduu ugu hiliyey waxaa laga bilaaba yas'aluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul fattaquu allaha ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala leeyay xoolihii la dhaciyey bay ku weydiinayaan kuwa xukunkooda ilaya rasuul buu yaallaa lagama jawaabin xukunkoodu siduu noqonaya aayadda 41 ayaa ilaahay kaga jawaabaya sida suuradda ah laakiin waxa lagu bilaabay fattaquu allaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay wuxuu leeyay war ilaahay ka baqa oo wa aslixuu daata baynikum صاحبة البين أو ذات البين وكلمات كمضاد في اللغة العربية أي الفرقة هي والوصل لبضا والله هل كان وفرقة دي بوجرته إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأصلحوا ذات بينكم وارحليل كيدين لحاية أما فرقة يدين لحاية وناتية واسكو حدمة وواطيعوا الله والرسول alla iyo rasuulkiiba aqbalay in kuntum mu'miniin haddaad tihiin baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa mu'miniina ilaahay subxaanahu wa tacaala jamaacadan yar xurgufta dhex gashay in laga saaro ayaa qur'aankii beder ka warramayoo dhan iyo wixii guul la gaadhay loogu bilaabay waayo qadiyadani waa qadiyad muhima kadib baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka dambe haddana uga sii digay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaahay uga sii digay haddana ghaswatu uxud ayaa si practicala loo baray marka nisaacu yimaadiyo isqabqabsiga iyo ilaahay iyo rasuulkiisoo la adeec waayo sida loo jabo qur-aanku wuxuu ina baraya marka hadday jamaaco tahay in islaax daatulbayn laga raadiyo hadday laba fardi tahay laba qof tahay ilaahay wuxuu leeyahy innama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum dadka mu'miniintii waa walaalo
فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إصلاح كدحرادية ولا لذن بالرب إليه سبحانه وتعالى أخوة إسلامية وفريضة شرعية ولذلك سأنا حكتني أقارن هدي بدي بالدعوة إصلاحية بإله إليه سبحانه وتعالى أيا كان وحل يسكوها يهاها كرسيها هذا قضية سياسية هذا قضية دماء هذا استيلها هذا حولها وحيدون طبعا نوت حديث الصحيحين كقصة أروري النبي عليه الصلاة والسلام سيقول قريه سمت كميدة كتيرة أيوح مغلي لبس صحابي ومساجد كاسكوها يستدى حديث وكعب بن مالك صحابي قال له رنشري يا ابن أبي حيدرت صحابي له رنشري ابن أبي حدرت صحابي قال الله يلاهدو الدين بكاء ما هذا كعب بن مالك وقت جي دين تنوي قاعدي وأنو بحين كري وايي دبتنا والله اسقبصد هذا الكامر كتاك تاقمي نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكودي بو مغلي لابد أننا مرمى مساجد كالحديث يسكو هيا كدبنا نبي عليه الصلاة والسلام انتو حجرة دي سكا صوابحي أيو كعب بن مالك ويالي يا كعب بويري واركعبو لبيك يا رسول الله أيوه جواب وأجيب يا مسكوا داعي إليه رسول كسيو نبي عليه الصلاة والسلام قعنتو وحو قلت المامي كعب مركا وحموشنا يا إنو ننكو دينتا ننكن نص كداية وحو إشارة قعنتا واربط كدا برد يعني نص ننكن كداف كعب وحو يلي مركز قد فعلت يا رسول الله ويا كي كلو النبي حكولي قم فقده ورد نكع وباقي صبح ميلو كرادي يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبدا سحابة مرنسم بودح قلو حكو دحدحادي كي حولا لهانا وحولي ورنس كده كي حولها لو دينتا لغو لهانا وحليلي ورد ضحو نسك كلاسيون الرادي بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبا فردي هديين وحي دوننا اسكوهيان وين لا نحقلها لبا طائفة ومسلمين تكمد هديين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لبا كوحوض المؤمنين تكمد هدي استلام فأصلحوا بينهما بايلهير لحدو ده هقاتشية لبا كوحوض لبا مدينة قرلة دي مدينة قردة رنتي ويدعي كرتا labaduba gardaroonayaan waa dhici kartaa waxa la isku hayaa waa dhici kartaa faham diimeed oo qaldamayba inuu yahay waa dhici kartaa waxa la isku hayaa hunguri iyo xoolo iyo dhul iyo wax la mid inuu yahay waa dhici kartaa manaasib siyaasiya iyo wax la mid inuu yahay ku doonaba ha noqdo ilaahay wuxuu leeyahay muuminiintu haday istilaan dhexdhexaadiya ولذلك ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري wuxuu leeyahay hadday diin qaldantay tahay buu leeyahay waxa isku hayaan dadka aqoonyahanka iyo culimada waxa korkooda saaran inay xujada bayaamiyaan oo dadka qaldan ay u sheegaan xujada hadday labaduba qaldan yihiin labadaba in loo sheego buu leeyahay hadday qolo qaldan tahayna in loo bayaamiyo bayaaminta dabadeed hadday diidaan markaasi waa fayn bagat ixdaahuma bay gelayaan buu leeyahay waa in laga soo horjeestaa kooxda kale waa in la raaca إلهي وحط الماما يا آياتك كان ورطائف أما كوحا مسلمين هدي استلام لحدودا لحدحات كالرادية إصلاح كبعض الدون هدي مدي ديدو كبرتو لدك الله إلا ينتهي حقه وصون قونسه هدي سيأغبش حقه فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين عدالة كل لحدحادية بإلهي سبحانه وتعالى ولذلك قبيل قرى هالنقطة لبا قبيل هالنقطة دولة قرى هالنقطة لبا الدولات هالنقطة أسباب دينية هالنقطة وحلسكوها هي أسباب دنوية هالنقطة وح كسطاء أي تهيبة وح ضدك مسلمين تأكل كودا صارا إن إصلاح ضدك كدح راديان إيا إن دقالك اللي الربشدو إن دماته هدي أي دمان ويدو عند قردران لين لقطه وقعنت لقلبته إصلاحه حوبة هي
wax badan. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya waxa bini aadamku shir iyo faq u galaa inaan khayr ku jirin saddex mooyaane. laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima. khayr kuma jira baa ilaahay yidhi faqa iyo shirarka badan ee dadku ay sameeyaan, saddex shir ama saddex faq mooyaane. cid sadaqo dadka faraysa in waxa loo shirayo ama loo faqayo ama afka laysu saaraya uu yahay in cid wax la taro, iyo inuu yahay aw macruufin sama laysfarayo, waxaan laga tashanayo ama loo faqaya inuu yahay wanaag dadka la farayo. ka saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay aw islaaxin bayna annaas, shirarka iyo faqaqa lagu tala jiro in dadka lagu islaaxiyo iyana kuwa khayrkay ku jira. cidda kuwaa qabata baa ilaahay leeyahy waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illaah, sidan cidda yeesha isagoo rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshiyihiisa, rabbi wuxuu leeyahy fasawfa nu'tiihi ajran cadiima, ajar aad u weyn baanu siinaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya markaa cid kasta xataa qof iyo jamaaca hadday yihiin waxa ishaya waa in la dhexdhexaadiya. faman khaafa min muusin janafan aw isman faaslaxa baynahum falaa isma calayhi in allaha gafuurun raxiim. odaygii dhaxalka dardaarmayey haddii uu dardaarankaasi qaldan yahay, ciddii ag joogta inay islaaxiso oo wanaagga u sheegta weeye. hadduu dardaaranku qaldan yahay in la yidhahdo kada sidan ha u dardaarmine, waa dhici kartaa inuu qaar isleeyahay dhaxalka weydaare ama dhaxalka ku yare ama cid u badi ama cayn. waxa uu samaynayaa janafan ha noqdo miduu khata u sameeyey aw isman ama kas miduu u sameeyey u dambaabaya ha noqdo, in islaax la raadiyaabaa habboon. xataa culamada badh baa qaba hadduu qaldan yahay dardaaranku oo adigoo qura aad maqlaysay, dardaaranka inaad islaaxisaabaa ku saaran. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qur-aanka waxa dhaartu ka guntanta xataa inaanu ahayn. anugu reer hebel inaan la hadlo ama dadka inaan islaaxiyo ama kuwa waan ka dhaartay ma guntanto, laguma dembaabo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walaa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim. dhaartaa ilaahay ku dhaaranaysaan ha ka yeelina mid idinka hor joogsata, ha ka dhigina inaad samaha samaysaan ama ilaahay ka cabsataan ama dadka ay islaaxisaan dhexdooda baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya inay cibaado weyn tahay, walidaalik waxaa qur-aanka rabbi uu ku sheegay masaarifu zakaa waxa lagu bixinaya inuu ka mid yahay alislaaxu bayna annaasi ciddii ku deymowda. inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiina walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum wafi alriqaabi walghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiil fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim. ilaahay dadka zakada la siinayo wuxuu ku tilmaamay 8 sinfi ama 8 nooc ee dadka zakada la siinaya ay u qaybsamaan. waxaa ka mid a walghaarimiina, kuwa la yidhaahdo kuwii daymoobay. haddii laba qof oo aad dhexdhexaadisay ama laba qabiil ama laba dad ama laba dowladood oo aad dhexdhexaadisay ay noqotay sulxigaa daraaddeed inaad dayn ku gashay, diyaa laysku hayey, waxbaa laysku hayey, wixii baad badh xambaartay, war heshiiya baad tidhi anigaaba bixinaya intani, waad xambaartay adugu. haarim baad tahay fii sabiili lislaax inuu dadka islaaxiyo daraaddeed ku daymoobay, xaq waxaad u leedahay in zakada wax lagaa siiyo. zakaadku dadkay ku baxaysaad ka mid noqonaysa. walidaalik qur-aanka ka warramaya masalatulislaax uu tiro baday. ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aan badan buu inooga warramay. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaamna isna wuxuu tilmaamaya xadiidka imaamu tirmidi warinaya uu saxiixa ku sheegay, sheekh alalbaanina ku raacay.
النبي يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل ما يدين كورما النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحكى فضل بدن من درجة الصيام والصلاة والصدقة درجة الصوم هي الصلاة هي الصدقة زكاة وحلا بحنيه علماء يقولون وبعد الفرائض يعني حسك قفك مسلم كوحا معروف وكتشرة صلاة هل تكذا وحوا وين إلهي لو قلنا وذين كمجيه صحيح كما النبي قال عليه الصلاة والسلام إلهي وحلو قلنا وذا وحوقفي عن فرائضه بعد الفرائض النوافل وحنا قانا أحاديث بدنوا الشيء ليس مثلا أحاديث بدنوا الصنياشة إن جنة لقوق ليا أما النار لقى بدبادية صار أرطي الدبا مركا فرالكي صلاة لقى يمادا وحسنا لتكدو كله أما قيام الليل ده أما الرواتب ده أما الضحى ده أما وحد ضنطن ده وحا الصلاة لتكدو كصهري فرال إيه وحا الصون للصوم إيه رمضان كصهري حصون للصوم إيه رمضان كصهري عرفان ده عاشوران ده أيام البيض ده خميس ده السنين ده وحا الصون صهري يوردن صدقه wax adduun la bixiyo marka laga yimaado zako adduunka kale qof bini aadam oo muslim oo sadaqaysan karo intaba wax ka fadli badan ma idin sheegaa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam tamacnaheedu wax weeyaan waa qadiya kamida arrimaha cibaadaadka ilaahay loogu dhawaaday ugu waaweyn shariicada islaamiga ay taqaano saxaabadu waxay dhahan bala ya rasuul allah ha bay dhaadeen ilaahay rasuulkiisiyo qala islahu dhaat albayn nabigu dadka dhibta dhex taalo ay islaaxisaan idan qofka islaaxa u kacaya waa inuu gartaa inuu yahay qof cibaadaysanaya risaala nabiila weeye qof cibaade ninka salaatu leyl tukanaya miya muran kaga jira inuu ilaahay ugu dhawaanayo maya yani cibaado u arkaa ninka masaajid dhisaya sadaqaad bixinaya agoon wax siinaya caynkan miya muran kaga jira inuu ilaahay ugu dhawaanayo subxaanahu wa tacaala waa maya إلهي وحينا بريا سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إن إصلاح ذات البين وكفض بدنيه وحاصيونا إذن وعبادة مسلمين تضيع ضي أو بهنا يدبوا النولية عبادات ومال قفك أقبل إنه وقت يجهد يحوق يحول بكم بحيه سو إلهي يعاوده تنوى وحو باهن إن تكون بحيه حوق يحول وقت بها سياد قضاياك رونا ما ينكرتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري ومسلم بورينا يوم حقوق المامية كل السلامة من الناس عليه الصدقة حبين كستوقف كمؤمن كأكمدا صدقة لقربا وبريبا دبا تنوع حقوق المامية صدقات كايري كمديهين يعدل بين اثنين أي يصلح لبا إن إحدى حادثه نحدو دقشد مسلمين وصدقات كاسبة كمتين بله مسألة الصلح يدك هشيسين تود لما قضية إسلامك هو وين ويسو عكسية أيا لما ضبا مسألة المركلة تشوغاي بنانت وإحنا نقالنا بنت الشريعة الإسلامية يعني حرام تهي صحيح كما بنت هو ممنوع مركمة تاجنا لكن حديث البخاري ورنا النبي وحلي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا بين علم ما أهب النبي عليه الصلاة والسلام كدتك دحدحادين إياه ورفي عنه كالقاضي وكال شيء إمام النووي رحمة الله عليه وحليه والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب حديثك الظاهر كسوح شيء بنت لفت يدويني هلك كنكو بنانتاي ولكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم لي إن تعارض يتورية يدل وروريكته بقى كصفة بدل وهي علماء دوليين لبدا قفيس هيا ما لبدا جماعيس هيا هداد انتو دوانك سنو كلا شيكتد أما ميدي وروكو شيئات قرقر حسيدو قلدا كلا قارسيسيد si mowqifku uu dabco
oo tenshanku uu dego oo dadku shaytaanku uga yaraado oo islaaxu uu u dhowaado haddaad saa samaysid warkaa aad sheegtay beenaale kuma tihi aakhirana been lagugu qori maayo sida xadiiskaa daahirkiisa laga fahmayo cagsiguna isna waa sax run aakhiro lagu cadaab galaa jira haddaynu dhi beenaan laysu qabanayn baa jira cagsigeedana run naarta lagu galaa jira nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixaynka ku yaalla laa yadkhulu ljannata qataat ama riwaayadda muslim laa yadkhulu ljannata annamaam nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam janno ma galo diradiraale culammadu waxay dhahdaan diradiraalaha kani waa maxay war baad maqashay nin sheegayo ama qabiil laga sheegayo ama cid laga sheegayo waa run warku waa la caayay waa la maagayay waxbaa laga sheegay waa war sidqiyo run ah qof kale waxaan laga sheegayo waad qaado calaa sabiili lifsaad qofkii kalaad u tagto waxaad tidhi war qole heblaayo ama hebel waxay waxasbulha saasaysba run baad sheegaysaa runtaa naartaa lagu galaa waayo waa run namiimiinimo ah run baan sheegaya kaa socon mayso waa run qasdiga ka dambeeya ama natiijada ka dhalanaysa ay tahay alifsaad bayna qoladani dambaabtay markay ciddan xamatay ama waxa ka sheegtay iyaga inaad ka celisaa unbay ahayd haddaad ka celin karayso wa ilaa inaad warkaa rarto oo qolada kale u sheegtaa ama cidda kale aad u sheegtaa waa ifsaadun bayna annaas waa namiimnimada la sheegayo waa diradiraalenimada la sheegayo walidaalik nebigu wuxuu leeyahy qofka noocaasi jannada ma galo sidaa awgeed islaax waxaan leenahay waa cibaada dadka in la dhexdhexaadiya waa cibaado ilaahay loogu dhowaado waa cibaada baynu leenahay mararka qaarkood beenteedu aanay been ahayn waa cibaada baynu leenahay mararka qaarkood runta ifsaadinaysa naar lagu galayo aanay run noqonaynin waxaa lagu tilmaamaa dadkoo islaax laga dhex raadiya waa sababaha la soo arooriyey yar ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu jamac uga habsaamay salaadeed waxaynu naqaanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah ilaahay agtiisa camalkee loogu jacayl badan yahay wuxuu nebigu yihi asalaatu calaa waqtiha salaadda waqtigeeda la tukado waqtiga hore yacni iyo fadiiladu ay ku jirto la tukado ayaa ilaahay ugu jacayl badan yahay waa kuu nebigu ku tilmaamayay jamaacada iyo ka habsankeeda waxaan ku hamiyaa rag badh guryo jooga intaan cid idhaahdo masaajidka dadka sii tuki inaan anugu baxo oo dadkaa soo gubo dad in la gubaa waa wax weyn laakiin waxay tilmaamaysaa waxay ka hadheenna inuu wax weyn yahay qadiyadda caynkaasi ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo jooga masaajidkii nebiga war baa soo gaadhay sheegaya ahlu qubaa xaafadda qubal masjidu qubaa halkan uu ka dhisan yahay awal masjiduu nebigu dhiso calayhi salaatu wasalaam ama masaajidkii ugu horreeyey baan idhaahna ee la dhiso muslimiintu cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam masjid nabowi isagaa ka horreeyey masaajidka dadkii xaafaddaa deganaa ayaa isdilay dabeetana dhagxan iyo waxbaa laysku tuuray nebigaa warka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu la hadlo wuxuu leeyahay xadiiska bukhaara warinaya idhabuu binaa nuslix baynahum war qoladan isdishay ina keena aan soo islaaxinay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa la baxay intii uu dhexdhexaadinta wadee reeraha kan islaaxinayay ayaa salaadii duhur la addimay dabeetana nebigii baa sooba noqon waaya calayhi salaatu wasalaam muddaa la sugay waa raagay bilaal baa abibakar u yimi wuxuu ku yidhi yaa bilaal ya abibakar nebigii ma hayna calayhi salaatu wasalaam ee dadka ma tukinaysaa haa buu yidhi abibakar baa salaada galay oo dadka tukiyey salaadoo lagu jira buu nebi maxamed soo noqday calayhi salaatu wasalaam uu yimi oo uu safka soo dhex jeexay oo uu abibakar istaba taagay abibakar se ma awoodin amase ma jeclaanin inuu nebi maxamed imaamu noqdo is hortaago dib buu uga soo gurtay nebigu wuxuu ishaaray inuu joogo laakiin waa diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam la tukiyey digan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa markaas
ومشروع كلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها وجماعة دي وكجها بصعبة إنه ضد إصلاحيه هذا مجالات كأي قشة هذا إنه مجالات فردية المبنية أما كوحة وحن لنا قضايات كسياسية قابي قشة ومضوا هذا كراسي يدولة نمدا يوحنا سوق بطين لأن حادية يكون في عمد waxaad ka garan kartaa xadiidka Bukhari warinayo ee nabiga calayhi salaatu wasalaam Abi Bakra saxaabiga la oran jiray soo saaray wuxuu leeyahay waxa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala al-minbar wal Hasan ibn Ali ila jambi arkay buu yiri maalma kamid ah nabiga minbarka saaran saajidkiisa minbarka fooshan oo dhinaciisana uu taagan yahay inaan yaro uu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam علي بن أبي طالب يا فاطمة ويلكين أنا حسن لو رنشري أو يربى ماشى تاجر تبعت أنا النبي مرنا ضدكوا إيجا مرنا ويلكين يربو إيجا لين عيسى تاجر مرة سوء حكوي للصحابة ديسي إن ابني هذا سيد إن كي كني ووايل وسيد ومسيادة دم حكوه لي ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وحان الله أركاين إلهي سبحانه وتعالى وكو إصلاحيه لبكو حد أو وين أو مسلمين أو إصحية يعني حين نقانا أهدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إن فتنة بعضي dad yow Masar ka yimi baa kacdoon sameeyay oo cabashooyin u sheegtay Uthman cabashooyinkoodii wuu ka jawaabay inaanay waxaanay ka cabarayaan xaqiiqooyin jirta ahayn wuu celiyay dabeetana qolyo kala waraaqiya wax hoos ka qoray dib baa adigu fitnadii u bilaabantay fitnadaas markay bilaabantay Uthman ibn Affan go'aan buu qaatay ummaddu isaga sababtiisa inaanay isu dilin saxaabadii waaweyneed baa Madiina joogta dawladda khilaafada ahayd baa nimankan thawrada sameynaya ay ku kaceen aan ku difaacna baa la yiri Uthman amar wuxuu ku bixiyay ninkii warkayga qaadanayo meeshaada joog aniga cidna ima difaaci karto la askari wala gaad wala cid aan u baahnay ma jirto Uthman amar kaas uu bixiyay dabeetana saxaabadii waa ka tageen nimankii doodihii ay wadeen oo dhan wuu ka jawaabay laakiin dadku mar hadday thawraadkii waxaasi kacaan dad qawqaa'iyiin oo dhex gala ama wax walaaqa lama sii waayo niman baa Uthman xagga dambe uga soo dhacay isagoo quraan akhrinaya ayaa la dilay Uthman ibn Affan markii la dilay saxaabadii Cali bay u tageen Cali waxaa la weydiiyey inuu khaliif muslimiinta noqdo waa ka warwareegay akhiiran wuu aqbalay bayca lala galay علي بن أبي طالب وحو قوان قاطي إنه الدولة دمر هرت الدجيو صحابة كلا وحي أمو قاطين قصاص الله الرئيسية حيلين عثمان عدي دي الشيء هرت هلا قصاصه عدي وعين تاسو أمو قاطي عشرة المبشرين رقم مدى كجرة زبير بن العوامي طلحة حكو جرة عائشة حكمد قولدي الشام joogtay markaa iyaga waxay ugu muuqatay ra'yi in horta la qisaaso cidii Uthman dishay Ali ibn Abi Talib oo amiirul muslimiin waxay ugu muuqataa dawladda horta in la dajiyo oo qisaastu waxa ka horeeya buu qabaa Ali mushkilad baa haysata khilaafadii islaamiga hayde dawladnimadii kala dambeyntii hala soo celiyo waqtiga kadib wixii ahkaam la fulin karaya hala fuliyo masaladii isdhaaf bay ku dhacday akhiiran nimankii fitnada waday hadday waxaan degaan dani uguma jirto waxay ka cabsanayaan in ahkaamtii la mariyo dabeetana goob kastoo la isugu yimaado ama wada hadal ka dhaco ama si uu dhacba dagaal baa bilaabma kooxaanay bilaabmaan marka xarbu Sifayn baa dhacay xarbul Jamal baa dhacay dagaallo saxaabo badan ku dhimatay dad badan ayaa dhacay dad badan baa dhintay akhiiran
niman baa shiray xajkay ku shireen waxay idhahdeen beleduba waa madaxdayna haysataa madaxdan ha la laayo ninka la yidhaahdo mucaawiye iyo camar ibnu caas iyo caliy ibnu abi taalib kooxdan weynaynu dillaa bay yidhaahdeen dadku markaasuu heshiinaya waaba laysa dhaarsaday xajkaa laysku dhaarsanaya fahamku markuu qaldamo waad garan kartaa xajkaa waxaa laysugu dhaarsanayaa kuu nebi moxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam jannuu gelayaa in la dilo oo ilaahay loogu dhowaado waa caliy ibnu abi taaliba xajkaa laysku dhaarsaday waa la safray mishankii ma fulin kuwii kale waxay ku guulaysteen inay cali dilaan isagoo salaad subax ku soo socda salaad subax isagoo soo baxay oo cali la dilay khilaafadii islaamiga ahayd waxaa loo doortay haddana alxasan ibnu alcaliy xasan oo ciidan 100,000 ku dhodhow wata ayaa wuxuu go'aansaday inuu muslimiinta sulxi ka dhex raadiyo wuxuu go'aansaday inuu heshiisiyo dadka muslimiinta ah wuxuu go'aansaday inuu tadxiya ku sameeyo kursigiisan siyaasiga iyo khilaafadan uu khaliifatulmuslimiin yahay inuu ka daadego sababta qura uga daadegayaan inay tahay dadka muslimiinta dhiigooda inuu joogsado ay heshiiyaan oo dib loo heshiiyo waanu ku guulaystay wuxuu uga dhaadhacay kursigiiba inuu qabsado mucaawiya dadka muslimiinta inay heshiiyaan 5 sannadood oo saxaabadaasi muransanayd iyo ciddii taabiciinta la socotay muslimiintu tuulo cusub may furanin وهي يقوم بابا يسكو مشغولة هاي يقوم بيستليه بعد هذه ال5 سنوات مركي هشيسكو دعاي كذب أي فتوحات إسلامية وحي بلابنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حط المامية إن ابني هذا سيد أنا قويل كي كان هو سيد النبي عليه الصلاة والسلام سيادة التانية أضين مدنية وهي اللي مدن وحكوها لي إنه يهي محي إلهي قعنتي سوكو إسلاحية طائفة أما طوائف مسلمين وإسحيسوا دل يديقو نحمري وقضايا سياسية إسكوهية عامل جماعة لو بحيي مسلمين تدب وده الشيئين حسن بن علي نوحا أقبلين وخلافة ده مكان كتنازله وحلنا مركا وحيت المامسة فضلق إصلاح وفضيلة دولية الإصلاح بين الناس يدماء المسلمين إن لتشوتشيو inay tahay wax looga dhaadhaco kuraasi iyo madaxweynenimo khaliifadii muslimka oo dhan baa aqbalay khilaafada inuu ka dhaadhaco mujarrad in qadiyadda dib loo hagaajiyo sulxigu heshiisku kaasi waa muslimiinta dhexdoodii siyaasada alkhaarijiyana u dhici kara dowladda muslimiinta hay cid kale oo gaalo ay hayaan inay heshiis la geli karto waxa ku filan نبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش مركي يستيليين أما قريش الدقال كله جرتان إلهة المسلمين تا سقال إيه 10 سنوات كدب أيو نبي قصاع عمرته قريش عادة دوحة هي بيت الله الحرام عدة عمريسان سامة مدينة لو ديدي إساقوا كون يافر بغلو عيدنا وطن النبي عليه الصلاة والسلام أن دقال كسو تلقلين سو عمرته يبيني قريشي ويوديد إنه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنت شيء كسته وإلهي حرمات كيسكو وينين أيام قريش ولا قليا قريشي وفود بيصادرته دور من بي كلبا من صادرتي نبي قوي ولا هدان والنقضاء اتكالي صادران أخيرا قريشي وحي أقبى شيء بليني هشيس قلي كرتو waxay soo diratay niman markaa islaamin oo saxaabi ah saxaabiga la soo diray Suhayl ibn Amr saxaabi la oran jiray oo markaa gaalada ka tirsan ay soo dirtay Suhayl ibn Amr waliba waxay yiraahdaan culimada taariikh ka midi waa guryihii laga islaamay colaad ku jirtay buu ka mid ahaa afar wiil oo dhalay 3 nin ay walaaliyiin baa intuba islaamay marka waday dagaalansan oo arkay qoyskiina in laga dhacay Suhayl ibn Amr iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam heshiis bay wada galeen
heshiiska Quraysh waxay rabtaa marnaba inaan la odhanin iyagoo aan u fasixin cidi inay maka timaadaad qasab lagu yimi muslimiintu ku timi masaladaa ma aqbalayno sanadkan waa inaan noqotaan in lowbaylow cimre ma jirto sanadka dambe kaalaya idinkoo sita hub musaafir qaato oo qura annana magaaladaanu idinka baxaynaa waa ceeb ina la arko idinkoo meesha marmarayo annanaanu joogno waa idin yara bannaynaynaa 3 casho cimraysta baxa waxyaabaa lagu heshiiyey waxaa ka mid ah 10 sannadood in dagaalka la joojiyo oo dadku balu heshiiyo waxaa ka mid ah ciddii muslima ee aan reerahoodu soo fasixin ee gaalada ka timaada inay muslimiintu celiyaan oo Quraysh dib loogu celiyo cidda muslimiinta ka soo ridowda ee xagga gaalada timaadana inaan dib loo soo celinin waa bandi iyagu xaggooda ku darsadeen heshiiska noocaasi qabaa'ilka kale carbeed cid waliba ciddii ay ku biirto inay xaq u leeyihiin ciddii heshiiska tarafka nabi maxamed galaysa calayhi salaatu wasalaamna inay geli karto tarafka Quraysh ciddii rabta inay gashaana inay geli karto oo Khuzaaca baa nabi maxamed xaggiisa ku biirtay qolyo kalena xagga Quraysheed bay ku biireen heshiiskaas buu nabigu aqbalay inuu la galo heshiiskan muslimiinta dan weyn baa ugu jirto waa awal marra la ictiraafo oo Quraysh ay aqbasho awal waxay u arkayeen koox yar oo diintoodii ka baxday oo baxsatay oo meel degtay oo dagaal lagu wado laakiin marka kan waa dawlad heshiis lala galayo waa nooc min al-i'tiraaf loo ogolaaday ummad halkeeda degan inay tahay qoladan xaggooda joogto heshiiskii markii uu aqbalay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa cali ibn abi talib la yidhi qor heshiiska cali baa qoray waxaa la yidhi waxaad qortaa hada ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كني ووحي النبي محمد وإله رسول كيسي كله الشيء وكاذب يري أقرب لكي على وقرب سهل بن عمرو يقول هدام كو قرني إن النبي تهي يا رسول كل ما عندك الله ماني ما قاعد كو قرب يري وحن كلامك مسح waxaad qorataa maxamed oo ina cabdillaahi waa wuxuu heshiiska kula galay Quraysh laakiin rasuulullaahi idaa ka masax cali ibn abi talib baa yidhi ma ilaahay rasuulkiisa diidantay wallaahi inaanan masaxaynin way ku oolaysaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii baan ahay xataa haddaa ay beenisaan calina wuxuu ku yidhi bal meesha ay ku qorantay tus nabigu waxba ma qori jiray waxba ma akhri jiray calaa uu tilmaamay nabigaa gacantiisa ku masaxay dabeetana wuxuu yidhi waxaad qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim suhayl ibn camr wuxuu yidhi ukaadi aqori waa maxay raxmaan araxiimka aanu garan maayo buu yidhi raxmaanka aad sheegayso ee waxaynu naqaanay qoro oo ah bismika allaahumma magaca alle ayaan ku bilownay qor laakiin arraxmaanta kadaa buu ku yidhi nabigu wuxuu yidhi u qor siday rabaan bismika allaahumma qor heshiiskaas markii la galay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam la galay ayaa waxayse soo taagayba odaygan nin uu dhalay oo muslima oo meelihii lagu xidhay ka soo baxsaday oo silsilada jiidaya silsilada ku xidhan yihiin oo le muslimiinay isla maanta muslimiintii kuu soo dhowaatay aad halka ka raaci dabeetana odaygii wuxuu yidhi kanbaa ugu horreeya waxaan heshiiska kugula galay nabigu wuxuu yidhi war weli heshiiskii mabayna dhammayninayso may buu yidhi wax dambeba abidka kula geli maayo haddaan kan la celin kanbaa kow ka ah nabigu wuxuu ku yidhi ajisni war kan ii sii daa midhkaa uuna ii sii daa ma aqbalaya buu yidhi wuu ku celceliyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday saxaabigiina wuu qaylinayaa wuxuu leeyay muslimiinay magaala igu celinaysaa iyadoo waxaa aragtaan laygu sameeyey ma waxaa rabtaan in diintayda layga fitneeyo war nimanka dib ha igu celinina buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la hadla wuxuu ku yidhi abijandal saxaabigan yare la yidhaahdo ya abijandal isbir waxtasib buu nabigu yidhi ballan baan galay ballankana kama baxo ee sabir oo wixii ku soo gaadha ilaahay dartii xisaabso
sabir oo adkayso wixii dhib kugu dhacana ilaahay dartii xisaabso aniguna ballan maan galo ka bixi maayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay heshiis buu la galay quraysh in dagaalka la joojiyo waa nooc min asulx heshiiskan daahirkiisa sida dadku ay moodayeen waxaa la moodaya inay qurayshi bursatay laakiin ma aha waxaa la yidhahaa 2 sannadood oo quru heshiiskani sii shaqeeyey kadib quraysh baa burisayba 2 sannadood ee uu shaqaynayey awal waa dagaal baa socday dagaalku iyo seeftu markay socotana dadku isma dhegaysto laakiin markii seefta la joojiyey ma jirin bay yidhahdaan nin carbeed oo caqli lehoo diinta loo soo bandhigay ilaa iyo uu islaamo islaamku uma faafin 2 sannadood sidii uu faafay intii ka horreysay oo dhan waxaad ka garan kartaa marka kan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 nin waxaan gaadhin buu wataa 2 sano kadib markuu maka qabsanayna wuxuu watay maxay 10,000 oo askari ciidan 10,000 ku dhodhow yani waxaasoo dadii way soo islaameen bale asxaabi alcuquul qaadadii quraysheed raggoodii ugu muhiimsanaa rag ka mid ah 2 sano nebiga uu islaamay calayhi salaatu wasalaam raggii soo islaamay sulxu xudaybiya intii lagu jiray dee khalid bin waliid baa ka mid ah camar ibnu caas baa ka mid ah raggii waaweynaaye islaamka soo galay idan waxay idhaahdaan fursadda nabadda islaamku wuu ku koraayo wax kuma noqdo haddii dadka xorriyadiyo nabad la siiyo islaamku wuu ku koraa walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiis buu la galay ilaahayna heshiiskaa qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay inuu fatxi yahay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyagfira laka allahu maa taqadama min danbika wamaa ta'akhar wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraatan mustaqiima wayansuraka allahu nasran casiiza fatxiga kan waxay culammadu ku fasiraan inuu yahay fatxu maka maaha inuu yahay sulxu xudaybiya innaa fataxnaa laka fatxan mubiintani inuu yahay sulxu xudaybiya waayo waa fatxigii keenay inay diinta dadku si xoogan u soo galaan waa fatxigii keenay inay bulshada muslimiintii xoogaysato inay cid waloo kaleba iska dhicin karto waa sulxigii keenay inay ictiraaf duwaliya hesho dowladdii yarayd ee muslimiinta ahayd ee madiine ka jirtay oo ah akbar caduw ka soo horjeeda oo dadka ku lahaa waa dhallinyaro naga soo baxsatay oo annaga naga tirsan ayaa u ictiraafay kayaan jira iyo dowlad jirta inay tahay quraysh baa ictiraaftay dabeetana waxay noqotay acraabtii iyo qabaa'ilkii kale carbeed ee isku eegayay bal dagaalkoodu meeshu ku gabagabooba inayana ictiraafaan ay noqdaan uma jirta ilaahay uu ku tilmaamayo wayutima nicmatahu calayk waxaan leenahay marka majaalaadka sulxigu gaal iyo muslim ama dowlad muslim iyo dowlad gaal u dhex dhici kara fi siyaasa alkharijiya wuxuu dhex dhici karaa fi siyaasa daakhiliya ummadda muslimka ah wax kastoo ay isku hayso ha noqoto kuraasi iyo siyaasada ay isku hayso iyo madaxnimo wuu dhici karaa wuxuu dhici karaa dagaallo qabiil iyo wax la mid oo isku hayso wuxuu dhici karaa adduun iyo hanti iyo dhul iyo wax la mida oo ay ku muransan yihiin sulxiga haddaba mu'miniinta dhexdooda dhaca isagu shuruud buu u baahan yahay ilaahay wuxuu leeyahy faaslixuu baynahumaa bilcadl maanta dad badan oo dadka isku daya inay dhexdhexaadiyaan baa waxay ku dhexdhexaadiyaan wax kaloo baatila dhexdhexaadin aan sax ahayn ilaahay wuxuu leeyahy sulxigu waa inuu dhaca maxay bilcadl cadaalad kow sulxi kasta oo wax xalaala xaaraantinimaynaya ama wax xaaraana xalaalaynaya ma bannaana sulxi shareecadu ay taqaano maaha mithaal aan idin siiyo xadiiska bukhaari warinayo nin acraabiya oo la reer miyiya ayaa ninbaa inankiisii nin kale qawsaar ka dhigtay ama dhoobi xoolaha inuu raaco kiraystay markaa wuxuu aqbalay inuu qawsaar xoolaha u raacan noqdo
waa laba nin oo muslimiin oo reer weeye kii xoolaha raacayay ee ninkii dhallinyarada ahaa ayaa dhaqan xumo sameeyey ninkii xoolaha lahaa xaaskiisii buu fara xumeeyey gabadhii baa la isafgartay waa zinaystay odaygii inanka dhalay ayaa wuxuu is yidhi inankaagii armaa la rajmiyaa war ninkan iskala heshii meel fog baa ha tegin dabeetana ninkii xaaska qabay buu yimo wuxuu yidhi war heedhe jaariyad yar weliida gabadh yar oo jaariyad oo khaadimad oo kuu shaqaysa iyo 100 neef oo adhiyaan ku siinayaa inanka ii siida rajmiga ayaa waxaa siiyey waayahay buu yidhi 100kii neef ee adhiga ah buu ka qaatay ninkii gabadhiisa la fara xumeeyey iyo weliidadii yaray kan inanka dhalay baa haddana wuxuu maqlay uu ka yara aqoon roonaaye inaan isaga inankiisu inan yaroo dhallinyaro aan horeba u guursan buhay inaan la rajminaynin dabeetana muran baa dhacay waa la isqabsaday nabigaa la isula yimi calayhi salaatu wasalaam acraabigii baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah unshuduka allah ilaa qadayta lii bilkitaab ilaahay baan kugu dhaariyeye kitaabka alle nagu kala xukun argaya ninkan buu yidhi ninka acraabigii diin badan garan maayo wuxuu is leeyahay intan xoolahan iyo intan waad qaadan karaysaa dabeetana wuxuu leeyahy ilaahay kitaabkii nagu kala xukun kii kale oo markaa isagu cid wax soo weydiiyo ka aqoon roon baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nagu kala xukun iina ogolow anigu inaan hadlo hadal baa la yidhi arrinkii buu sheegay inankaygu buu yidhi ninkan buu u shaqaynayay dabeetana gabadhii xaaskii ninkani uu qabay ayuu ka zinaystay kadibna inankaygii waxaan ku soo furtay 100 neef oo adhiya iyo jaariyad inaan siiyo haatanse waxaan ogaaday arrinku inaanu soo ahayna deenna kala xukun ahlu cilmiga markaan weydiiyey waxaa laygu yidhi inankaaga in 100 jeedal lagu dhufto sanadna la masaafuriyaa lagu leeyahay wax kaloo lagugu leeyay ma jirto dee ninkana xoolahaygiiyo waxa iga haysiiyo nabigu wuxuu yidhi waan idin kala xukumaya war soo saar raalli kuma tihdin haa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inankii baa la weydiiyey war ma samaysay haa buu yidhi wuxuu yidhi wiilka kan 100 jeedal ha lagu dhufto sanadna ha la masaafuriyo odaygii kalena wuxuu ku yidhi 100kii neefa adhiga ahaa iyo jaariyadiiba waad celinaysa soo celi ninkan u celi xoolihiisiiyo wixiiba saxaabi kaloo halkan fadhiya unaysa la yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi war adiguna kac berri bax reerkii ninkan u tag su-aashaa weydii inay zinadaa qabtay inaanay qabin hadday qirato rajmi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wiilkan yidhi waan zinaystay iqraarku isagunbuu ku kooban yahay gabadho hadday tidhahdo warana waxba maadna zinaysana naga tag waxba laguma laha haddii kale waa in 4 markhaati la keena kan le waan ka zinaystay bes adaa qartay unbaa la odhanaya isagunbaa la jeedalaya gabadha waxba la weydiin maayo laakiin markii iyadiina loo tegayana waxay tidhi mayaana waa zinaystay waa qaratay iyadiina waa la rajmiyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu celiyey xoolihii culammadu marka waxay dhahaan sulxi kasta oo xalaal xaaraantinimaynaya ama xaaraan xalaalaynaya sida kan oo kale waxay dhahdeen waa muntaqid walma'khuudu calayhi mustaxaqu raddi buu ibnu xajar alcasqalaani leeyahy wixii hanti lagu qaatayna waa la celinaya amase nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka tirmidi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamay sheekh alalbaanina saxiixa uu ku sheegay wuxuu leeyahy alsulxu jaa'isun bayna almuslimiin ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraama heshiis kasta oo ay muslimiintu galaan waa la aqbalayaa mid sharciga dhaafaya mooyaane waxa lagu heshiinaya waa inaanu ilaahay xuquuqdiisa noqonin waa inay xuquuq bini aadam noqotaa oo ilaahay xuquuqdiisa heshiis ma gasho heshiisku waxay idhaahdaan labada darafba waa inay raalli ka noqdaan in qolo lagu qasbo lagu sanduleeye maaha heshiisku waa dad laysu soo dhadhoweeyey labada qoloba waa inay raalli noqdaan waayo culammadu waxay idhaahdaan caqdiga sulxiga iyo caqdiga bayca yacni wax kala gadashada waxay ku asaxdo sulxiguna ku asaxaa baa la yidhaha labada caqdi waa isku mid
walidaalika baa imaam shaafici raxmat ullaahi calayh waa ku tilmaamaya wax kasta oo beeca shardi u ah inuu islaaxana shardi u yihi islaaxa waxaynu naqaanaa in ilaahay qur-aanka ku yidhi maxay tijaarada ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima can taraad ayay tijaarada ku dhacdaa sulx beeca waxaa shardiya inuu macluum yahay socankaa maaha waxa la kala gadanaya wax la garanayo oo ama mitra lagu xisaabiya ama wasni ama kayl ama wuxuu doonaya ha noqdee wax macruufa inuu iyo macluuma fakadalika sulx waxa lagu heshiinayana waa liska heshiiyuun maaha waa inuu wax macluuma yahay haddaan labada daraf waxay ku heshiinayaan aanay wax qoran oo la garanayo macluuma aan ahayn isaguna waa baatil marka waxa la yidhaha bunuudu sulx labada kooxood ee ishaya agtooda labadaba wayna macluumatay si awgeed buu imaam shaafici wuxuu leeyahay aslu sulxi annahu bimansilati albayci famaa jaaza fi lbayci jaaza fi sulxi wamaa lam yajus fi lbayci lam yajus fi sulx walaa yajuusu sulxu cindii ila cala amrin macruuf kama laa yajuusu lbaycu ila cala amrin macruuf sulxigaas shareecada waafaqsan hadday dadku sameeyaan waxaynu nihi waa cibaado ilaahay loogu dhowaado waa wax adduunka lagaga badbaado muhlikaadka walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum lagaga badbaado waa wax keensanaya shareecadiioo la fuliyey waa wax keensanaya dadka quluubtoodiioo laysu soo celiyey waa wax keensanaya waqti iyo hanti iyo xoog badan oo ay ummaddu lahayd oo isku jabi lahayn la kala badbaadiyey sidaa awgeed ayuha alikhwa waxaan leenahay in dadka la heshiisiyaa waa wax khayr badan cidda sulxiga samaynaysaana waxay u baahan tahay kow qadiyadda aad dadka ka heshiisiinaysa inaad si fiican u garanayso gunteeda iyo asbaabteeda iyo waxeeda inaad garanayso waxay dhahdaan inaad taqaanaa adab alxiwaar waalmufaawadaat qaabka gorgortanka iyo dadka loola hadlayo laysugu soo dhoweeyo waa aqoon dhan baa maanta dunida laga dhigay almufaawid alfulaani baad maqlaysaa waa wax u baahan tadriibaad iyo barasho waxay u baahan tahay baa la leeyahay cidda rabta inay dadka dhexdhexaadisa inay cid xiyaad ku sugan tahay cid dhex ah oo nin marka horeba hawaahu ay dhan la jirta dhexdhexaad ma noqon karayo waxaa la dhahaa cidda wax dhexdhexaadinaysaa waxay u baahan tahay cid aan degdegin ee qadiyadda hubisa inuu noqdo waxay dhaha cidda wax dhexdhexaadinaysaa waxay u baahan tahay inuu noqdo cid wax dhegaysan karta oo bini aadamka inaad mushkiladiisa xallido waxaa ka mida bay idhaahdaan inaad warkiisa horta dhegaysato uu kuu sheegan karo wuxuu rabo oo dhan haddaad markuu laba eray yidhaahdaba afka aad kaga booddo waxba ma xallili karaysid waxay u baahan tahay nafsiyan buu qofku murtaax u noqonaya haddii warkao dhan laga dhegaysto wuxuu cabanayo o dhan iyo wuxuu sheeganayo o dhan haddii la aqbalo inuu soo bandhigo laga dhegaysto waxay u baahan tahay bay yidhaahdaan atraafta xataa ishaysa in laga qeyb geliyo islaaxa iyo waxay u arkayaan ayuha alikhwa waxaan leenahay markaa sulxigu maanta iyo heshiisiintu innaga sharcigeenna waa wax ku qoran itijaaha caalamiga qaanuunigina waa meeluu hadda u socdo mufaawadaat iyo gorgortan iyo in dadka la heshiisiiya aakhiriya adduunbana waa wax khayr ku jiro walidaalika waxaynu u baahanay dadkaas risaaladaa qaadaya ee waayeelka leh ee waxgaradka leh aqoonyahan leh ee wadaada leh inuu arkaan cibaado ilaahay loogu dhowaado adduunkana midho dhashay inuu yahay wax kale waayo xilkani wuxuu u baahan yahay in wakhti la geliyo in hanti la geliyo in juhd iyo awood la geliyo ayuu u baahan yahay in caqli iyo maskax la geliyo u baahan yahay waxaan kusoo koobaya marka haddaynu muslimiin nahay imaa waa inaynu iscafinaa waynu waxaynayo dhan ka tanaasulnaa imaa waa inaynu sulx iyo heshiis qaadanaa oo ah
inaynu isu tanaasulno meel dhexa isugu nimaadno adnaad wax ka tagtid annaan wax ka tago innagoo ilaalinayna danta guud iyo danta caamka ah si aynu labadeennuba u wada guulaysan karno waxay dhahdaan gaaladu waa win-win solution bay dhahdaan yani waxay dhahdaan muranka dadku isqabtaa laba mid buu noqdaa nataa'ijta la gaadha ama saddex mid buu noqdaa bay dhahdaan dariiqo ay u yaqaaniin thaqaafadoodii kristanka ahaa ama yahuudiga ahaa bay ninka soo qaataan shamshuun nima yidhaahdaan shamshuun dariiqadeedu waxa weeyaan waa annaan wax ku waayo adnaad wax ku weydi labadeennuba aan halaagsanno labadeennuba aan hoognada waa shamshuun theory bay yidhaahdaan oo waa farsamo ay sheegaan ama bay yidhaahdaan inuu midna yidhaahdo waan faa'iidaya qolana ay khasaarto oo kala xoog badni lagu dayo labadaa dariiqaba waxa ka fiican bay yidhahdaan win-win solution win-win solutionku waa maxay anna inaan guulaysto adna aad guulaysato adna aan wax kuu ogolaadoo dhan marka la eego faa'iida kuugu jirta anna wax la ii ogolaadoo dhan marka la eego faa'iida igu jirto marka labadeennuba ma jiro cid zero tagtay zero sum gameku isagu waa kan ah shamshoonka inaad labadiinnuba isla jabtaan kan ah inuu midna guulaysto midnana wuu adag yahay sida loo gaari karaa waa in qolo un la tirtiro soomaalina istishay oo reer la tirtiray lama hayo waxa qura ee macquulka ah ee laysugu iman karaa waa maxay waa win-win solution inaad ku tala gasho aqbashid isna inuu guulaysto adna aad guulaysato oo ah meel dhexayn laysugu yimaado intaa waxaa loo dhaafaa waa masalatu altaxkiimi waalqadaa iyana waxaan isku daya inaan habeen damba soo bandhigo sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin